السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتي كسر وذا يوتيوب شانل ولكن كي فيلم سافلو ما توحى نديها يا ترى محل ما تديها يا ما توحى نديها يا كل وقام سوري ديش أدو ذلك السنة واحد نديها يا كل ما تصير عوانك وريك صاركتين برنامج كسابسن شاي لحد حرف شاي كا بين ما توحى كتاه صاروا صاركتين با على مضير كسابسن قفك dhagarta ku maleegaya ama jacaylka aan ka rabin ujeedooyinka kale lagu garto baa rabaa inay la wadaago oo waxa ka keenay daraasada caalamku isku keenan oo intaas oo milyan oo qof lagu tijaabiyay oo la soo ogaado la soo helay baa rabaa inaan calaamadaha qaar ka mid ah asxaabtayda iskala wadaago mid la jecelaystay fadlan haddii ay tahay markii koowaad channelkaygan aad isku aragno subscribe saar haddii aad hore joogtina like ta iyo comment-igu wax iska muhiim ah haddii barnaamijkayga iska gudo galo inta aynaan sheegin calaamadaha lagu garto qofka jacaylka ku ciyaaraya horta marka hore waa inaan in yar iska dhiraano jacaylka inkastoo qof walba og yahay waan cidna loo sheegin laakiin barnaamijka waan ku furan doonaa haddii aan maanta la wadaago horta marka hore jacaylka waxaan ka aaminsanahay jacaylku waxa weeyaan xabad yar oo horta marka hore beedka waa taqaanaa soma ama ukunta sida kolba qof walba u garanayo xabadda ukunta waxa weeyaan qof kasta waa og yahay in xabada ukun yahay jacaylka ku soo biiray ama xiriirkan qofka kale la wadaagay xabada ukunta haddii aad gacanta saa u dhigto aad dusha saa u dul saarto beedka ma dhacaso oo haddii aad saa u haysid waad ku ilaalin kartaa ilaa intaad awoodid marka jacaylka dhabta ama qofka si dhabta ku jecel saasoo kuu qabanaya oo kuu haynaya haddana saasoo tahay haddii qofka xaggan gacantiisa loo rogo beedka wuu ka dhacaya haddii xaggan loo rogo soo kale wuu ka dhacaya taa macnaheedu waxa weeyaan isagu intaa ku jecel yahay saasoo haynaya maalinku ka midha dhaliya ama guur xalaaleed dhex marana waxay noqonaysaa inuu gacantiisa kala soo qaado oo dusha saydi ka saaro taasoo macnaheedu noqonayso in haddii dhinacan iska rogo iyo haddii dhinacan kale isku rogaba uu jacaylkiinu mar walba ahaanayo mid meel fiican ku dhex jira aan dhacayn haddaba kan aan maanta rabnay calaamadiisa sheegnay isaguna kaga soo horjeeda sidoo kale isagu waxa weeyaan waxyaabaha khatarta keenaya in laga hadlo waxa weeye waa aad buu ugu dhow yahay jacaylka caadiga sidoo kale isaguna gacanta saasoo beedka ugu qabanaya halkaasuu dhigaya lagama yaabo in xaggan haddii loo rogo unba mooyaane intaa kaloo dhan ilaalinaya si jacaylkii caadiga ahaa oo kale ilaalinaya u haynaya laakiin waxaa dhibtu ka jirta waxa weeyaan maalinkii ay ahayd inuu dhammaystiro oo uu kii kale gacanta kale saa usoo saari jiray si uu ugu asturo oo u hayo oo meel amni u geliya jacaylka yara beedka kani gacantii kale oo xoog leh ayuu ku dhufanaya beedkiina waad ogtihiin haddii gacan kale iyadoo mid ka hoose mid kale lagu dhufto waxaa imanaysa inuu burburo waana sababaha uu jacaylku ku burburo markuu meelahaas marayo sababtoo inta hore dhan ayuu beenaha haddaba dadka noocaasa ee dhagarqabayaasha ee macnaha dadka qalbiyadooda saa u dhaawaca ayaa waxaan maanta ka sheegaynaa ama idin kala wadaagayaa 5 calaamadood haddii aad qofka ka qayb kamid ah ku aragtid boqolkiiba 80 iska caddahay inuu qofkaasi ujeedooyin kale leeyahay ayna tahay inaad ka fogaatid waxba idinku sii dheeraan maayo calaamadahaasaan geli doonaa inagoo 5 calaamadood kolba mid sheegi doona in yarna dul istaagi doona calaamada koowaad aad ku garan kartid qofka inaan kugu ciyaarayo aanu jacayl u socon waxa weeyaan horta qofkaasi waa inuu qof aad maseer badan marka leeyahay maxaa ka wada kama wado inuu maseer qofka jacayl bay idinku taqaan weeyaa badii wax sii ninkii kaarey maanta maseerka wuxuu nagu dirayaa jacayladeeda maya laakiin qofkan uu maseer badan yahay laakiin wuxuu ka maseerayaa kuma ogolaanayo inaad la saaxiibtid qof kale wax asxaab la dhaho kuma ogolaanayo qof asxaabtiina kula isjeceshin hadduu arko wax isku dayo inuu kala fogeeyo uu kala dilaya oo macnaha kuma ogolaanayo madaxdiisa ku arko xataa si fiican kulama hadlayo oo farxad leh markuu joogo qof kale la joogo mar walba wuxuu jecel yahay sidii oo tahay qof geed cidla ka baxay inuu meel cidla uu ka helo meel cidla la soo hadlo dadkiisa aanad aqoon haba yaraatee midda kale xitaa dadka isagu asxaab isagu wax isku yiin inaad aqoon leedahay ma jecla qofkaas markasta wuxuu jecel yahay si hawlihiisa ugu fulaan cidla inuu ka helo oo meel cidla aad ugu baxdo calaamada haddii aad qof markasta raadinaya inuu meel cidla kugu helo waxa weeyaan way ka mid tahay calaamadaha qofka raba inuu qof kale qalbigiisa ku ciyaaro sidoo kale ma jecla haddii aad shaqayso shaqadaada inaad asxaab ku yeelato ma jecla waxa uu jecel yahay qofkan kaliya inaad ninna ku doona waa inaad meeshaada gashid kaliya ahaatid noloshaada dhanba isaga iyo cid kaleba isaguna taqaanid cid kale oo dhan anada aqoon lahayn ayuu jecel yahay markaas calaamada labaadna waxa weeye waxaad ku garan kartaa uu isna noqon karaa dadka aad jeceshahay adigu ama markasta ka agdhow haddii familkaaga tahay haddii xitaa walaalkaa tahay wuxuu jecel yahay in markasta idin kala fogeeyo
haddii aba ay jiraan qof oo faamilkaaga ka mid ah ama asxaabtaada xitaa haddii tahay isagu wuxuu isku dayayaa markan qofkani xaggu kii hore ka ahaa maaragtaan aanu dee mar walba keli kula rabay kana uu kuu matelay calaamadana waa calaamad kale u eego wuxuu isku dayay mid kala fogeeyo qof kastoo isjecleedeen buu waxun kaaga sheegaya haddii aad isku fiicnaydeen oo kale wuxuu ku dareensiinaya inaan qofkaasi noloshaada ku habboonayn xataa walaalkaa hadduu yahay sababtoo ah ma rabo qofkan is adiga ku jeceli haddii aad maanta dhibaatootid uu ninkan dhibaato ku geysto ninkii qofkii ku badbaadin lahaa kula talin lahaa weeyaan markaa wuxuu rabaa inuu cidlo uu kaa helo barnaamijkiisa oo dhan maaragtaan halkaa ka fushayo haddii xitaa gabar tahay iyo haddii wiil yahayba labaduba waa suurtagal markaa wuxuu iska ilaalinayaa markasta inaad qof family oo kale ah oo dabadaa ku xidhanta informationkaaga mar walba u sheegto inuu jiro wuxuu kaaga dhigayaa dadka bahalo-aan jacayladaada iyo ciddaas jeceshiin iyo waxaasoo dhan lala wadaagin buu kaaga dhigayaa micid bayna og micid baad u sheegtay looma baahna waa kelmado aad ku isticmaalayo jacaylkiina haddiina laga faafiyo dadku ka xumaanayaan haddii aad irto qof saas mar walba u fikiraya waxa weeyaan waxyaaba kala u laaban ujeedooyin kale aana jira qofkaasna isagana waxa weeyaan inaad calaamadda aad iskaga ilaalisaan baan iyadana jeclaan lahaa calaamadda saddexaad haddii aan iyadan dul istaagno calaamadu aad bay isku irshabaxaan laakiin haddana haddii aad u fiirsato aad bay u kala fogyiin calaamadan saddexaad waxa weeyaan qof khiyaamoola ah oo khiyaamo badan ama gebigiisuba sun ka samaysa sunta waad garanaysaa xumaanta leedahay dhibta leedahay waa qof yaqaana xilliyada ay tahay inuu ku khiyaamo xilliga ay tahay inuu ku xanaaneeyo xilliga ay tahay gebigaagaba waxuu ku kala baranayaa sida boolbool midmid buu ku kala baranaya dabeecadaha aad u kala dhexgelaya waxa uu awoodaa inuu aad ku xanaaneeyo jacayl kugu abuuro isla daqiiqadaana isla markaan wuxuu awoodaa inuu si rumuudka uu ku bedelo oo uu kaa dhigo macnaha maxay qof wax walba kugu adkaynayo aad kugu qalafsan uu noqdo markastoo uu arkay inaad wax fahmaysid ama aad dareemaysid wuu isduldhigaa waxaanu iska dhigaa qof aad ku jecel waxay kale kugu rogaa kaasoo sababaya inaad ku dawaqdidba qofkan miyuu ku jecel yahay miyuu ku neceb yahay aad kala garan weydid markastood ka fikirtidna waxaa kugu sii dhalaysa inaad jacayl ka badan intii hore aad usii qaado sababtoo waqti baad gelisa aad kaga fikirtood kala garan weydo marka waa qof xeeladihiisa taatikadiisa jacayl ay aad u awood badan tahay oo mararka qaar aad kaba filaynbaba ninkan bini-aadanka nin lamid aad heli karta haddii uu kaa tago ama gabadhani gabadh lamida ayaa adduunkanba joogta haddii aad irto qof saameyn noocaasa kugu leh oo waxaa ku leeyahay sidaa rumuudka noloshaada saa babedelaya isagana waxa weeya taxadir badan ayuu u baahan yahay sababtoo qofka sida dhabtaa isku jeceshin ama kuu jecel calaamadahaas aad buu uga fog yahay mana aha qofku babedela oo si rumuudka ku babedelaya noqon maayo waxaad kusii garanaysaa isla qofka aan sheegaya khiyaamoolaha inuu mararka qaar ku adeegsado ama uu kula isticmaalay kelmado aanad marnaba ka filayno xanaf leh oo bahdilaad aad u arkaysid kelmadahaasaa marka aad la yaabto ama uu dareemay inaad jacaylkiisii ka shakiday oo aad noqoto qof dib u gurasho samaynaya shaki galay oo isla ninkan ninkuu qalma maaha ama gabadhan gabadh kuu qalanta maaha baa haddana xag kale kugu rogayaa aad kuu soo dhaweysanaya naxariis badan ku tusaya waxyaabo badan oo aanad waxba maaragtaane shakiga oo dhan kaa saaraya buu samaynayaa sababtuna wax kale maahe waa xirfadle aad ugu dheereeya sida qofka kale qalbigiisa loogu ciyaaro sida turubka calaamadda afaraadna waxay noqonaysaa wuxuu awood u leeyahay inuu ku dareensiiye inaad tahay qof dambiilaa sidee buu ku dareensiinaya inaad tahay qof dambiilaa mararka qaar maadaama uu yahay qof xeeladu leh khiyaamaynta iyo maxaa ku leeyahay jacaylkaba waxa uu isku dayayaa inuu mararka qaar uu dembi aanu lahaynba isagu hadda eeg dembi aanu isaguba lahayn dusha saarto markastuu dembigaa isagu dusha saartana waxaad dareemaysaa wax soo sawir qofka wanaagsana oo jecela oo naxariis badana dembigan anaaba lahaa isagu ma lahayn maxaa uu saasoo dhan u qaadanaya isaga laakiin ujeedkiisu waxa weeyaan si uu hadalladaada iyo dhaqamadaada aad mararka qaar ku yar dhaqmaysid inuu adigu dib kuu karbaasho si aad iskugu canaanatid oo aad jacaylka in ka badan intii hore uga dadaasho markaasa waxaad dhacaysa inaad gebigiisaba gacantiisa usoo gasho oo sidaan sheegaya adoo beedkii yaraa halkaa gacanta ugu jira ah uu markuu doono kugu dharbaaxi karo isagoo eeganaya waqtiyada daciifka tahay waqtiyadaad awood aanad lahayn aad ku nacdid ama aad kaga tegtid oo qalbigaaga dhan ula wareegay markaa si aanad ula kulmin calaamadahan sheegay oo dhammaantood ah waxaa samayn kara un qof khiyaamada iyo xirfadda uu leeyahay shukaansiga dheeri ay aada u sarreyso oo markaa haddii aad aragto qof saas oo dhan hawlo intaan sheegay qodobadaan sheegayba ku sifaysan boqolkiiba
haddii uu ku sifaysan yahay 50 ama 60 aad aragtay isagoo ku sifaysan marka la isku celceliyo qofkaas waa qof khatar badan aad iskaga ilaali maadaama asxaabtaytiin anigu kaliya waxaan kasoo qaadan daraasada caalamka baa ka helay meel oo ka akhriday kabacdi waxaan jeclaysiin inaan youtube-ka kula wadaago haddii aad markaa aad ka faa'iiday ama aad igu raacday qodobo badan oo noocaas kusoo aragtay haddii aad egas hore lahayd ama jacayl hore aad lahayd aad calaamadahan sheegaya aad ku aragtay badidooda marka waan kaa guulaystay waa sidaan rabay barnaamijkiis ku habboonaa ayaan idiin soo gudbiyey subscribe-ta iyo like-taysa haddii kale oo shaki ku jiran commentiga igu soo sheeg si aynu isku aqoon weydaarsano wareed wasalaam ya dhamaantiinba sidaa iyo nabadgelyo